waxaa soo ifbaxaya warar sheegaya in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo ku xiran xabsi ay maamusho hay'adda NISA loo wareejinayo xabsi guri sida ay sheegayaan in la wareediyo. wararka qaar ayaa sheegaya in muddooyinkan ay socdeen dadaalo la xiriira sidii xabsiga loogu sii deyn lahaa iyo sidii loogu wareejin lahaa xabsi guri si la mid ah Xasan Daahir Aweys hogaamiyihii hore Xisbul Islaam oo muddo 5 sano xabsi guri ku ah Muqdisho. hase ahaatee kaaliyaashiisa ayaa ka cabsi qaba in haddii xabsi guri loo wareejiyo inuu noqdo mid u nugul weerar ugu yimaada Al-Shabaab, taas beddelkeeda ay dalbanayaan in la sii daayo oo xorriyadiisa dib loogu celiyo. odayaal, siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa horay waday dadaalo la xiriira sidii loo sii deyn lahaa, balse dadaaladaasi ayaa noqday kuwo miro dhali waayay marka loo eego culayska ka baxsan dowladda federaal oo ka yimid deyntiisa. Roobo ayaa muddo 7 bilood u xiran dowladda federaalka ilaa iyo hadda laguma soo oogin wax dambi ah, iyadoo uu si rasmi ah Al-Shabaab uga soo goostay bishii Agoosto ee sanadkii 2017 xilligaasoo dowladda federaalka ay si weyn u maamustay una soo dhaweysay. Mukhtaar Roobo oo ahaa hogaamiye ku-xigeenkii hore Al-Shabaab ayaa bishii December ee sanadkii hore 2018 laga soo xiray magaalada Beledweyne kadib howlgal ka dhashay banaanbaxyo rabshado wata oo sababay dhimasho iyo dhaawac. waxaana Mukhtaar uu ka mid ahaa musharaxiintii ugu cadcadda ee u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, balse dowladda federaalka ay ka soo horjeeday musharaxnimadiisa, waxaana dhowr jeer laga dalbaday in uu ka tanaasulo, balse isaga iyo taageerayaashiisa ayaa ka dhaga furaystay.